dhibtii dhaawacii dhowaan igu dhacday warkaygana aad u naawilayay inaan fariintan ugu sheego inaan caafimaad qabo inaan wanaagsanahay in xaaladeyda hadda aad u wanaagsan tahay wixii igu dhacayna aan ka soo dhayday iyagana aan ugu bishaaraynayo dadka ay jecel ee walaalahaya ee dalka iyo daafaha dunidaba kala jooga inaan wanaagsanahay anigu dalkuna wanaagsan yahay dadkuna wanaagsan yahay xaaladeduna hadda ay fiicanta waan awoodi kari waaye runtii fariimaha tirabeelka ah ee dadku ay jeclaayeen inaan uga jawaabo sida kala duwanii soo gaadhayay inaan qof kastaba sidiisa ugu jawaabo laakiin inaan wanaagsanahay oo xaaladeedu hadda ay fiican tahay inaan u sheego unbaan jeclaystay kelmadan kooban inaan u qabto intaa kadib waxaa ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay dadkeenna bogooda burcad isku mariyo inuu ilaahay dalka inoo wanaajiyo inuu ilaahay dunida waxaynu ka raadin nooc ictiraafa ilaahay naga siiyo mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsantihiin intii ila damqatay intii dareenka gaarka ay haysay intii runtii dareenaysay xaaladayda aad iyo aad baan u wanaagsanahay